أقل كدودينا أقل وأقل كيمية أقل كمجالات إنه سوقري دونا وهوس بنقول دكاندر دونا محاجر الصومالي أقل مية أقل مجاله ولا هاي أقل بيرات لبضة ولا هاي أقل كبيرات جونين صبار دونا لكن ما أنت وحنا كهذي دونا أقل كمية يكن مجاله وآه سود حجري إيه كدودي دونا رجع كدودي وحكا وهر يعني كلا يراده ظاهر أفقر شيء نكلا يراده في قبورة نكلا يراده دجوينه نكلا يراده علي مدير أحمد نور وسوق وركا قيبتي سقادنا يسوع جدينيه waxaa jiray maalin weydiin inuu ka doodnay aqalka laga dooday oo hoos ahaan aynu u doodnay oo xariga muddo shari ka hadlaynay maanta waxaynu ka doodi doonaa aqalkaynu qaybihiisa balguud ayaynu ka doodi doonaa doodana koowaad waxay noqon doontaa horta aqalka miyigu imisuu u qaybsamaa su-aashaas waxaan ku horraysiinaya jawaabteeda daahir afqarshe mamuura waad mahadsan tahay aqalka soomaalidu ay dhisato waa qaybo badan qaybihiisa badan marka u horeeya waxaa loo yaqaanaa saari iyo gurgur saari waxaa la yidhaahdaa aqalka intaa dhisan ee muuqanaysa gurgurkuna waxaa hoos yaalla saarigaasaa laba u qaybsama qabax iyo dad buu noqdaa qabax waxaa la yidhahdaa wixii qori ka yimi ee aqalka ku taagan yahay markaasuu leeyahay dhig iyo udub iyo lool iyo dhigaha iyo loolka mid u dhexeeya oo isla jirjiricsan oo la yidhahdo jalaloodi intaas waa inta uu ku taagan yahay aqalku haddii sare loo qaadayo oo u intaa ka weyo aqalada aroosyada iyo waxaasa tiirarmaa ka hooseeya dhigahan iyo waxaa lagu dheereeyo waa marka aqalku dabadeed cirkaa tegaya ee sare isu taagaya arlada oo dhan ka dheeraanaya ulamadaryaala noqday aqalkii xaggan loo soo foorinaya laysa soo wada horkeenaya oo tiirarkaasina wakti bay galaan marka aqalka la banaanadinayo la doonayo in laga sameeyo aqal weyn oo aroosa ama se dadka beeralayda ahee aan guurguuraynin aqalka dadka badani seexday xoolaha qaar xitaa ay hooyaan ee aan werigii la raraynin ee iska adunida dhan baa tiirarkaasu ay soo galaan waa yahay wax allaale wixii dusha laga saaraana dad baa la yidhahdaa waa wixii lagu daday dad qof waliba waa yaqaanaa waa wax lagu awday markaa kaasina wuxuu kala kacayaa wax aws laga sameeyey iyo saanta xoolaha oo la yado lama lo-duba ha u badatee geeluna wuu ku jiraa saantaas iyo wixii caws laga sameeyey yuu u badan yahay dadkaasu iyo wax maydhax laga sameeyey oo kebda la yidhaahdo iyo wax mare laga sameeyey amase haragga xoolaha dhaldhashay oo waa geedkan la yado aloorka oo duur yar yar oo la safay iyo xadhiggaa oo la isku sameeyado xadhiggu ama yahay haraggaa xoolahee aan sheegay oo lagu qurxiyey oo meel line loo sameeyey ama maradii oo la sooxay oo dabadeedna lagu tidcay bahalkaas oo noqonaya geed aamin ahoo sida saanta oo kale ah quruxuna leh wax raagayana ah oo cawska ka laxaadroon oo alaabada aada iyo aada haweenku ay u qiimo geliyaan ka mid a markaa aloolkaa iyo saantaa iyo cawskaa iyo maydhaxdaa afartaa jaad ee laga sameeyey yaa dad la yidhaahdaa xadhigguna waa ka dhexeeyaa oo dabeedna waxaa isku xidhay markaa waa xadhig marka intaasu aynu ka sheekaynay oo dhamme waa wax saariga laysku yidhaahdo ee aqalku ka dhisan yahay gurgurna waa wixii lagu manafacaadaa ee hoos yaalla oo markaasu u kala kacayaa isagiina nooc bal horta qabo haanta ama ha lagu lusho ama biyo ha lagu shubto iyada hormuudu ah waxa ku xiga ubooyinka subaga lagu shubto ee lagu kaydsado ee aan weligood xumaynin ee baarahada la yidhaahdo ee galbeed ka baxa
ee la xaragaysiiyo ee sida quruxda leh loo sameeyo ee la safo aqalka wanaagsan ee qaaliga ah baa ku xiga. waxa ku xiga bahalkan la yidhaahdo qumbaha iyo tebedda oo markii hore inta aan la baranin waxa maacuunta ah ee inooga yimid dhulka ajnabiga wixii aynu subaga ku shuban jirray ku kaydsan jirray waa qumbaha iyo bahalkaa la yidhaahdo tebedda. tebedda waxaa laga sameeyey harag adhi, haraggii adhiga un baa loo sameeyey gilgillo 3 hoosaa la isu weydaariyey, markaasaa camuud laga buuxiyey, haraggii xaggii qaliinkaa la sarraysiiyey, xaggii dhogorta lahayd oo la xiiray oo la wanaajiyey baa markaa la hoosaysiiyey, camuud baa laga buuxiyey, geed baa laga laalaadiyey, markaasaa camuuddii lagu disay sida jooniyadda marka hadhuulka lagu cabaynayo oo kale. kolkaasay simantay, markaasay saa ku qallashay, markaasaa dabadeed halkaas inta la hufay oo la wanaajiyo camuudiyo wixii laga dhameeyey oo suba kale markaa lagu dhaqdhaqay ayaa sidii loo dabooli jiray ee looga ilaalin lahaa ma garanaysaa wax u taga subagaa saasuba halkaa loogu shubaa. kaa waxa uu caada subaga oo iska kulul ilaa wixii saan weeyaana laguma shubo oo isaguna cilmiya buu ku dhisan yahay. bal hadda waxay la tahay raggii kalena inuu maaragtay u wada diyaar yahay yaan ka laasanini dee saaxiibkay fuqubiraale u dhiib. haddana waxaan u wareegayaa dhinaca fuqubiraale oo isagu gurigaas baadiyaha dhowr aroos ku galay oo nin aqoon dheeraada u leh guryaha miyiga, guriga miyiga iyo qaybihiisa inta u kala baxo. fuqubiraalow guriga miyigu daahir way maqlaysay intuu u qaybiyey iyo sida uu qaybiyey, bal adiguna qaybahaaga iyo saad u arkaysa waxaa suurtowda inaad inkastaad reer nugaaladeed isla tihiin inaad kala gedisan tihiin oo adigu dhowr meelood baad aroosi ka gashay. bal maxaad anoo intaa aw daahir uu yidhi magaca guuda anugu waxba ku dari maayo, waan la qabaa aw daahir sidaa uu yidhi. hase ahaatee waxaan qaybinayaa udubada. udubada laba waxaa la yidhahdaa labada udub xoog, waa labada fooda la isu saara. midna waxaa la yidhaahdaa udub dhexaad oo waa ka dhigta dhexdiisa lagu muda. laba udub oo kalaa jir oo iyaguna la yidhahdo udub daceed oo udba dhinac isaguna ka qabta. udub raareed baa jira oo isaguna dhigta raarta ah lagu haya. dhexdaa markay noqdaan waxa raaca haddii aqalku duubasho culus leeyahay oo gabadha gaarida ah ee aad uga digtoon inaan aqalkeedaas uusan xumaanin, duubashadaa faraha badan waxay u samaysaa qori la yidhaahdo heensaraar. heensaraarkaasi wuxuu leeyahay 2 faraar oo waaweyn, markaasaa saas loo saaraa duubashida si ayan ciiddaas hoose uusan aboor uga soo gaadhin ama bahashan cawa gudda la yidhahda ayan u soo gaadhin oo duubashadaas ayan wax ka cunin. duubashadaasna waxaa loola dan leeyahay waa mid raasa maal dambe laga rabaado maalmaha ay tahay feestada ama damashaadka ama aroosba la samaynaayo ama gabadha gaaridaha ay gabadhi u joogto oo ay leedahay mar baad wax dhisi doontaa sii kaydi yaa duubashadaasna loogu dan leeyahay. udubadii intaasaan u qaybiyey. waxaan kaloo raacinayaa dhigaha qabaxa ah. qabaxa sidaa uu dahar u sheegay baan la qabaado waxa weeye lool iyo dhig. loolku waa kuwa duurka laga sameeyaa ee saa isugu soo laabma isugu soo girgirinma. 2 noocba waa lagu maraa dushooda marka la maro. xarig xoolaad waa lagu maraa dhigta iyo loolkaba. xarig la sameeyadoo cad oo xagga galbeedka u badan oo hadhowto la asli doonana waa lagu sameeyaa oo waa lagu maraa. marka qabaxaas wuxuu markaas ka qaysan yahay udubka sidaan hore u sheegnay iyo loolka iyo dhigaha. inta qabaxa la yidhaahda waa intaas ma garanaysaa qoriga ka samaysan. haamihii xaggoodii u kici maayo oo wuxuu ka sheegay aw daahir kuwa ugu muhiimsani waxaa weeye haanta. haanta marka dhowr nooc baa loogu kala dhawaaqaado marka la dhaaminaayo waxaa la yidhaahdaa dhoon horaad.
waxaa markaas ku xigtada waa 2 dhoon horaad iyo 2 dhoon dambeed oo intaasu badiba waxay ka qayb galaan dhaanka xaggiisa waxaa jira haan kale oo iyaduna la yidhaahdo haanta lagu lusho oo iyaduna sida reerku u kala xoolo badan yahay qola aagaan bay ku lulataa qola dhikil bay ku lulataa qola waxay ku lulataa haantaa dhoon horaada oo kale oo wanaagsan oo ama qaba ah ama argeega oo calashaan si wanaagsan loo aslay oo loo xooleeyey oo fiican yaa reerka xoolaha badan ee lo-da iyo labaha waxa laga lushaa waa lo-da iyo ariga sida reerkaas u kala xoolo badan yahay baa haantaan loogu lushaado iyaduna waxay la eg tahay kuwa dhoon horaadadaas oo kale kuwa yaryar ee aan dhikisha ku sheegaynay ma agaanta ku sheegaynay waa kuwa gabdhuhu uguba heestaan naagi haan yahay dhigdhiga dhabar yar waagii dharaarow iyo soo mana dhanaanaatid markay ku lulayaan cashaan iyadaa laleeyahay waa yartahay adigu dhikil yahay marka hintaas ayaan uga baxayaa erayadii anoo aan sii badanin rag badan oo murti badan hayaana iga dambeeyeen ama gabdho badan halka kale ay joogaan waana mahadsantay maanta aad iyo aad baynu nasiib badan nahay waxaa nagala soo qayb gashay maryan oo iyaduna waxay qayb weyn ka qaadan doonta dooda tan ku saabsan aqalka iyo alaabtiisa waayo way nooga waxogaalsan tahay waa gabar inkasta oo raggu ay xoogaan gabdhaha oo wax badan ay ka xoogeen oo leeyahay ilbaxnimadaanba hadda gabdhaha qaarkood ku doodayaaniin ilbaxnimada raggaa la yidhahdaa ilbaxnimadii dumarka waa haweenku waxba kuma leh weli anagu waana dhacay sidii baan u dhacannahay hadda waada moodaa inayn inagu dhacayno qalabkoodii iyo alaabtoodii aynu ka boobayno oo aynu wax ka biidayno si xun wax uga sheegayno laakiin nasiib wanaag maanta doodii hadday nagala soo qayb gashay maryan bal maryanay adiguna guriga guriga miyiga imisaad u qaybin lahayd odayaashu waxay u qaybiyeen saari iyo gurgur bay u qaybiyeen gurgurkii saaridii bay kala qaybiyeen oo waxay ka dhigeen waxa la yidhaahdo qabax iyo surad ayay dheheen waxay yidhaahdeen guriga saarida waxay ku sheegeen bale waxay ku sheegeen dad qabax iyo dad ayay ku sheegeen dadka alaab baa lagu sheegay waxa wax lagu dado waa laisla wada garanaya oo qabaxna waa dhigihii iyo udbihii iyo wixii kaleeto hoos yiin ayaa lagu sheegay haddaba maryanay adiguna bal maxaad ka oran lahayd gurigii oo laba loo qaybshay saari iyo gurgurku waa tiro badan yahay sida runtaa waxaa ragga maanta meeshaan iskugu yimid oo ay ka mid yihiin awdaahir fuquburaale waxaan u malaynahayaa inkastoo aan gabar ahay inaanan haddana la bedeltami karinin mar haddii aan loo kaco xaggii dhaqanka soomaalida maxaa yeelay midna waxa weeye waa iga aqoon badan yihiin midda kalena waxa weeye waa iiga waaya aragsan yihiin marka sida ay u qaybiyeen oo ay labadaa magac ugu kala qaybiyeen ayaan aniguna sida runta ah ku waafaqsanahay sida la wada ogsoon yahay maaragtay aqalka soomaalida waxaa weeye hidda ahaan waxa aan ka soo gaarnay ka ab inkasta oo aqalkaas aaskiisa iyo dhisidiisa iyo abuurintiisa ay keeneen haween haddana raggu waa kan ku dhaqma oo ku hoos jira oo shay bay u yaqaaneen marka sidaa daraaddeed labadaa oday siday u qaybiyeen ayaan aniguna ku go-aa waxaa kaloo jiray oda kale oo isaguna wuxuu ku yahay aad iyo aad aqoon badan u leh waxa waaye dhegaweynow adigu maxaad oran lahayd bal adiguna odayaashii waad maqlaysay gurigii labay u qaybiyeen maxaad ku dari lahayd hadalka hambadiisii baad siisay horta meelaan uga tago garan maayo markay ila soo gudboonaatin baase hambada ku siin doono waa mid tan kale anigu wixii kale la sheegiyey aqalka shayba meeshuu anfaco uu magac ku leeyahay yaan kala sheegaya waa gar oo waa kugu celin doonaa anigaa ruuxaygaaba sii qaybin doona guriga ereyaan haddayni weydiiyaan mar kaleni sii weydiin doonaa waxaynu u noqon doonaa bal aan ka hadalo qaybaha waxa la yidhaahdo saarida waa laga hadlay qaybaha saarida maxaad ku dari lahayd meesha dhoon horaad la yidhaahdo amba dhoon dambeed may erey cusbaan ku diraya anigu waxaan u aqaanaa kalsaar iyo dambeed marka labadaba inaan u aqoono weeye dhoon horaad iyo dhoon dambeed haddaad u tiqiin aniguna waxaan idhaha kalsaar waa midda hore dhoonta hore iyo dambeed horey jirtaa kalsaar iyo dambeed
waa caliyow waxaan kugu sii darayaa inaynaan saas uga hari doonin ee haamaha iyo dhoonta ruuxeeda iyo dhoonta qaybaheeda guriga ruuxiisa saas uga sii hari maayo waanaynu ku celin doonaa laakiin hadda waa guud maraynaa markaynu guud marro baynu misna hoosoosu degaynaa erey baynu degaynaa erey udub maxaa la yidhahdaa udhaxaad maxaa la yidhahdaa kaa maxaa la yidhahdaa waxaas ayaynu tusaale ahaan aynu uga doodi doonaa waana xoogaana way noo diyaarsan yihiin ko waxaynu nidha bal maantay saarida hala kala guro ereyga waxaa la yidhahdo saarida oo uu ku sheegay daahir afar shay uu xoogaa ka qaatay bal saarida keliya ka dood dhega weyno saaridii ka doodo waana sheegaynaa shayba meeshu ka anfaco intii aanu ka naqaan wey horta duubasho haddaad maqasho waa ninkan u gaadhay oo leh naaguhu ma wada lahaa aqalladuna ma wada lahaa waxaa jirtaa aqal aan inta la dhisanayo iyo heryadaba dhaafsiisnay oo aan duubashiba lahayn baa jirta waxaa jirta aqal ay duubashidu siyaado tahay oo markay waxna wax ku heeriyeysato awrtii waxna dhiskii uga hadhaya duubashi kaasaa la yidhaha ka saddexda hensaraar loo sameeyo ee midna dhexda yahay midna labada madax yahay ee la isdul saaray aqalka hagaajiya ee suradda aada maqashay waa taa oo waa duubashida mid kale shayga aloolka la yidhaaha naaguhu aqalka waa ila xidhaan naagta wanaagsane gaariday waxay doonaysaa marka aqalkaba la soo galo inaan ninkii muuqanoo foodaba marka la gesho ninkii oo iska jiifa durba la arag marka sida qaalibkaa wuxuu ka shaqeeyaa ila xidhkaa oo isaga badiba waa lagu ila xidhaa oo inta docdaa lagaga soo dhiso oo barbar lagaga soo dhiso yaa barbarka kalena la laabaado udubkii udub lexaadka ahaa yaa dacalka loogu soo xidha dhagaati buu leeyahay ku xidhan oo markaa ila xidhka waa shayga keena weeye kaasuna waa mid kan kale kabedda horta aloolka waxaa ku samaysan xadhig iyo suuf iyo jil oo aqalkao dhan ka dhexeeya dhigaha jil baa gala oo saantan adhiga la jeexayo maaragtay ee adhiga lagu rarada aqalka lagu duubayo jil baa la yidhaha magaceeda jilkaa waa lagu saabiyaa oo aloolkaa lagu sameeya oo dhigaha lagu mara magaciisa gudiya jil baa la yidhahdo kama baxdo aloolkaa bir waa jil oo orgida yaryar ee dhalata yaa laga jeexaa markaa jil baa la yidhaahdo waa laga sameeyaa qaarna suuf baa laga sameeyaa qaarna xadhig baa laga sameeyaa oo xadhig caadiyaaba marmar lagu dhex daraa waa mid kabedana maydhax duf la yidhaahdo oo maleegna la yidhahdo dufna la yidhahdo naaguhu dabada ka maleegaan oo ay u qiyaaseen iyo xadhig baa iyana lagu sameeyaa waa la samayn jiro iyagoo u dhisan madaxay ka xidhaan oo waa ku heesaan oo waxay usii dhigaan cunay usii dhigtaan oo waa dhib badan tahay naagti kabedda lehay kaalin darane adaan kayd usii dhigan bay isiidaan marka ay ku heesayaan maamaadaas waa rabnaa haa yes koron kor cuni mayno haruurka wey koron kor cuni mayno oo kariba mayne karuur geel ma lahayaabay leeyihi marka iyana halkaasay ka waxaysaa oo waxaasay ka shaqaysaa xadhkaha magacyo iyana kala leeyihiin oo xadhig bay korka ka wada yihiin qaar yeel baa la yidhaahaa qaar cayn baa la yidhahaa qaar waxaa la yidhaahaa gibil xeer qaar bayd baa la yidhaahaa qaar waxaa la yidhaahaa mara oo waa xadhigga aqalka lagu maraayo maraa la yidhaahdo waa xadhigga ay aqalka ku maraane dhigaha iyo ku maraan oo dhiga maraa la yidhaahaa qaarba meel buu ka shaqeeyaa mid hoggaan baa la yidhaha waa ka awrta lagu hoggaamiyaa mid dabar baa la yidhaha waa ka lagu dabraa midba meel buu ka shaqeeyaa dhigaati mid la yidhaha jira dhigaati dhigaatigaas shay walba aqalka intaa le wax allaale waxa saaraya shay walba wuxuu kaga xidhan yahay faruurta dhigaatigaas aloolku ku xidhan yahay oo hararadu mid walba ku xidhan yahay oo kabaduu ku xidhan yahay oo shaygii kor loo qaado dhigaatigaasaa ku xidhan aqalkao dhanna shaygii kor loo qaadaba xadhig baa ku xidhan oo ka lalmado haddaan xadhigaasi ku xidhnayn la rari kari maayo si loo wadala lama yaqaan horta intaanu ka naqaananana waxyaabahaasanu ka gaadin waxaan dib ugu noqonayaa ninka la yidhaahdo fiqburaale fiqburaalow waxaa kan la yidhahdo suradda ereygaa suradda oo waxa la suro oo ka timi suriddaa ka timi oo haan leh oo hub leh oo dhar leh oo xarig leh oo bal guriga ah gudihiisa waxa la suro bal gurigaa laba daryaalaha ah oo weyn oo arooska loo sameeyey
oo gabadha loo soo gelbin doonayo wiilka maxaad odhan lahay bal suuraddaas u koob taas horta la yidhaahdo waxaa la yidhahdaa sudhayo furayo sudhayo sudhayo waynu ogsannahay oo halka kan magaalada ah waxaa laga yidhahdaa takabane takabane yaa la yidhaahdaa waa af shisheeye innagu afkeenu waxaa weeye sudhayo sudhayadaas marka aqal la dhiso oo aqalladu way kala duwan yihiin waxaa iska jira aqalla hadba si uu u kala saabaan badan yahay ama u kala dhar badan yahay ama u kala hab wanaagsan yahay ayay sudhayadu ka soo baxdaa sudhayadaas waxa la sudhaayaana waxaa weeye aqalkii waa la dhisay marka aqalka la dhiso ama wuxuu leeyahay udbo faraara leh ama wuxuu leeyahay ligligyo haamaha ku waxaysan ama wuxuu leeyahay dhigo iyaguna waa wanaagsan oo dhinacyada ka saaran markaas dharkii reer miyiga waynu garanaynaa oo dhar badan oo ay saas u sursuraan ma ay laha laakiin waxa la sudhaayaa waxaa weeye weelkii yaryaraaye muleenka la odhan jiray weelkaasu marka muxuu noqonayaa midmitan waxaa ka mid a dhiisha wax lagu kaydiyo oo odaygu markuu maqan yahay dhiishaasoo iska wanaagsan oo dhiisha oday la yidhaahdo iyadoo had iyo goor halkaa iska sudhan oo waxaa la sudhayaa udubkaas yaa la sudhaya waa kow waxaa jirta mid kaloo iyaduna la yidhahdo dhiil quraan oo dhiisha dhowrtada la yidhaahdo oo marka caanihii lagu soo waxiyo iyadana halkaa la iska dhigaa oo la yidhahdaa marti hadday ama timaado ama marka tacdaad la samaynaayo oo beel badan ay halkaa isaga dhowdahay maalinta toddobaad la isugu tagaayo la qaadaa la geeya waxaa jira bahalkan isagana jiraabka la yidhaahdo jiraabkaas oo haweenku had iyo goor wax ku ritaanay ama saqafa ku riteen ama geediha ku riteen ama wax kasta waa ku riteen taasna waxaa la yidhahdaa sudhayaday ka mid ah waa kow waxaa jira isaguna ohligaasuna waa la mid oo jiraab iyo ohligaas waana isku mid waana kala duwan yihiin yarahe ee midna waa mid guriga iska jooga oo halkaa wax lagu sudhaa midna waxaa weeye sidii boorsadii bay ka dhigan tahay oo markay gabdhuhu adhiga raacaan ama ay waxay soo sameeyeen wax qaraab la yidhaahdo qaraabka ay soo samaynayaan waxaaba jirta inay dhir galoola arkaan oo diirtaan markay diiraan maydhaxdaa iyay calaliyaan markay calaliyaan bay soohaan intay soohaan bay markaa geedi ka dhigtaan geedigaas ay ka dhigtaan oo ay soo hayaan markuu u soo buuxsamo soo waxeeyo halkaasay ku kaydsadaan isaga waa kow waxaa kaloo jira ohligaas ama jiraabkaa lagu ridaaya madiishaa lagu ridaa mudacaa lagu ridaa maxaadkaa lagu ridaa waxyaabahaas oo dhan waa muleenkiibuu ka mid yahay laakiin waa qayb aan dhulka la dhigin ee la sudho had iyo goor gadowyagaa teedsan ee faraha badan leh wixii dhara oo aan markaas la qaadanaynin maalin la rabo in la qaatana waxaa lagu ritaa ama abxadda yaa lagu ritaa abxaddaas ama sanduuq ka dhigan oo sanduuq ka dhigan abxaddaas oo ka dhigan sanduuq oo kale ayaa lagu ritaa waa kow waxaa jirta iyaduna mid kale oo iyaduna xashin la yihahdo xashinta marka dhar laguma rito laakiin xashintaas wixii raashineed dibadda laga keeno oo ama midha leh ama leh haddii la maayo yicib leh ama haddii la maayo masage leh waa xashin oo iyaduna waxaa weeye kaydka gurigay ka mid tahay iyaduna bariidka iyada laguma shubo laakiin bariidku waa iska gooni isagu wixii sudhayo la yidhahdaa waa waxaa fudud ee ama harag laga sameeyey ama maydhax laga sameeyey oo ohligii noqonaya ama orgii laga sameeyey harag adhi laga sameeyey oo la tolay kuwaasaa horta sudhayo la yidhahdaa waxaa kaloo soo raaca waxa la yidhaahdo safti baalka la yidhaahdo masafta ama gunada la yidhaahdo ama kuwa kan gunada yaryar oo iyaguna magaalada xaggeedana ka soo gala lana sameeyo oo cawda laga sameeyo oo toliina laga sameeyo iyaduna haweenku ay ku keetaan inda kuusha iyo muxuu ahaa alaabtooda yaryar ee iyaga nadaafadooda ku saabsan ay ku ritaan iyaguna marka kuwaasaa la yidhaahdaa sudhayo sudhayadaasuna marka waxay ka soo dhex baxdaa muleenkii aqalka dhexdiisa ahaa iyay ka soo dhex baxdaa oo alaabtaas marka awrkii la raro iyagu malaha ligligya isqabsanaayo markii la raro awrkii xaas walwaalka ahaa ee haamaha iyo qumbayaasha
iyo tebadaha iyo baalkan muxuu ahaa gembisaha gembisaha waxaa weeye saab la sameeyey oo qurux loo yeelay oo laga dhigay lagu sameeyey markii calashaa saas loo sameeyey afkiisi saas laga dhigay ayaa ama lagu sameeyaa xadhig geedigo qurux badan oo la aslay ama lagu sameeyaa xadhig xoolaad oo la isugu xidhaa lagu sameeyaa afkiisana waa la silaa isna liglig buu yeelanayaa kuwaas markii awrkii xaasulhaalkaa lagu teediyo la raraayo yaa hintii aan idii sheegay ee sidaha lahayd yaa mise la surfudaa oo meesha la yidhaahdo hebelow waxaan wataa dhiil caanatee leh ee awrka iitaar oo maxaa la odhanayaa iisul weeye macnaha xulkii waa wada raraya markaas baa la sudhayaa iyadii oo waxaa la sudhayaa haan ligligeed yaa la sudhayaa ama uba ligligeed hadba kii adag yaa la sudhayaa ilan weyn buxdaa dhiisheeda inta sudhayada la yihahda waa hintaa qaybtaa ka soo baxda guriga dhexdiisa ee aan iyadu gelaynin teedka dhulka ah ee la dhowraayo bisla ee halkaas cashan fiiro gaara loo leeyahay intaasaa sudhaya la yihahdaa innagoo aan moodayo inaynu ku wada ayidi doono gooni ereyada qaarkood u qaadan doona ayaan waxaan u gudbinayaa ninka la yidhaahdo ereyga kan la yidhaahdo surayo ama suradba si nin kastiba si kasta ha u dhehee waxaan u wareegayaa dhinaca gurgurka oo daahir afqarshe daayana uu qayb weyn ka qaatay haddana waan ku celin doonaa gurgurka bal qaybaha gurgurka daahir afqarshow halkaan aan ku dhaafno u dayno ninka la yidhaahdo fiqi buraane aan u dayno waxa la yidhaahdo surayada bal adiguna qaybaha gurgurka maxaad ka oran lahayd gurgurka bal gurgurka qaybihiisa guud oo sare mar gurgurka adaan hoos u degaandegin maasalid gurgur waxaan kuu sheegay markii u horreeyey aqalkii markuu qaybsamay waanigii ku idhi waa gurgur iyo saari saariguna waa waxa dhisan gurgurna oo wixii hoos yaalla labada qaybood waa nigu kala qaaday markaa gurgurkii noocyadiisu waa ay badan yihiin lambar one waxaa u haamaha oo qaarnay biyaha leeyihiin qaarna ay caanaha leeyihiin haanta caanaha biyaha laguma shubo iyadoo sabel abaari dhacdo ay khatara gasho maaha oo way ku xumaanaysaa labadaa waa la kala ilaaliyaa tawey waxa la yidhahdaa dhoon oo waa dhoon horaad halkii aynu maarata ka kala sheegaynay oo dhoontaasu ama waa lagu lushaa ama biyaha lagu dhaansadaa markaas dhoon horaadaasaa lambar one u ah dhoon dambeed baa ku xigta marka awrka la rarayo weeye haan kale oo saddexaad oo awrku hadduu dhaansan yahay waxa haraadana kaa hor yimaada iyo dadka dhanka wadaaba ay cabbaan oo xagga dambe kaga xidhanina way jirtaa oo saddexaad haamahaasaa horta lambar one u ah ha kala yaryaraadeen ha kala waaweynaadeen midba wakti baa loo baahanayaa goor walba caanuhu isma la eka goor walba biyo badan oo la dhaansado looma baahna mid waliba xilliga ay leedahay baa la doonayaa in maaragtay lagu manaafacaado dhoon horaada tan weyn ee biyaha ah marka dabada biyaha halkan ceelgaab oo kale laga soo qaadanayo awr loo rari maayo haan wastaani oo hooyadu qaadan karto ayay markaa u baahan tahay kasoo biyaysato maaragtay balliga kan ku dhow waxaa horta haamahaasaa lambar one u ah waa yahay waxaa ku xiga waxaan la yidhahdo baarahada ama ubada ninba si u yaqaano ee subaga lagu shubto ee laga beero galbeed ee aqalkeenna markaa ugu quruxdana badan leh ee sidaa loo safo aqalka qaaliga ahee la doonayo in maaragtay ha laysku xaragaysiiyo warkaa waa kanuu leeyahay ubabare sabciin ahoo askar faylinu moodo ingiriisa la moodo marka uu ninku geerarka ku tirinayay sidaa loo safo oo dabadeedna aqalka qaaliga ah saas oo kale ayaa loo safaa baarahadaas oo dhar cad inta lagu sameeyey iyo xadhig dhanna ka guduudan dhanna ka cad xadhig caare la yidhaahdo oo xadhigga kan saab caaraha lagu sameeyo oo markaa haddana mara kale lagu gadfo oo cad haddana habaaska lagaga qarinayo saabkeediina la wada aslay meeriska u sarreeyana mara cadoo maxamuudiyaa lagu sameeyey xoolana laga buuxiyey oo muqmad iyo maxawash iyo duriyo dabadeedna ay ka buuxdo oo dabadeed tacabkii soomaaliyeed oo halkaa ku dhan yahay kuwaasa horta markaa ku xiga
dadka waxaasoo kale aan kicin karaynin waxa uu ah halkaa u gala waxa la yidhahdo gogga goggaas gogna waa la yidhahdaa qumbena waa la yidhaahdaa gog waxaa loo odhanaya waa gog geel oo sidii aan markii hore idiin sheegayey 3 geesoo isdhaafsan inta loo sameeyey oo qori loo qoray oo geed midhooda oo aan jabayn hadhow la og yahay 3 la isweydaariyey ayaa la qaadayaadoo korkaa dambe saan idiin sheegay xadhig yar lagu xidhaya markaasaa laga laalaadinaya meelaan geed jiriddi saas oo kale u fooraro aan waxba taabanayn camuudna markaasaa laga buuxinayaa wanaagsan oo saafi aho meel laga soo guray markaasaa lagu dugaynayaa meel walba markaasuu sinmayaa oo wuxuu noqonayaa waxaan meel laba ka dhimicsanayn kolkaasuu halkaa ku qallalaya isaga iyo camuuddiisii hadhowna waa laga soo daadinayaa markaasaa dabadeed gacanta la marinayaa kolkaan ogaado inaan wax camuudii ku hadhin oo laga shaqeeyo haweenay taqaani ay ka shaqayso arrintii ayaa markaana subag lagu soo dhaqdhaqaya halkaasaa loo samaynayaa saabkiisii iyo xargihiisii subagii baa lagu shubaya shardi waxaa ah subaga oo kulul inaan lagu shubin ilaa waa saano uu gabanayaaye xoogaa buu yar qanna laga yar dhigayaa markaasaa lagu shubaya haddii subag hore ku jiri ka dambe lagu shubaana waxba ka dhibi maayo kii hore hoostii fadhiistay oo halkaasu dabadeedna marka wax walba waa ka adayo haddii awrku la muudo waxba ma noqdo tanagan iyo ubadan iyo waxaan oo dhami waa wada jabaya afkanna waa laga adkeeyo ma daadin karayo uu hooyaa ka shaqaysay taqaan cilmigaas sidiisa kalena waa saangeero isaga waxba noqon maayo raasamaala sidee kaasa ahaa gog baa la yidhaahdaa oo waxaa loo jeedaa goggii geele saantii barbar weeye qumbena waa la yidhaahdaa labadaa magacba wuu leeyahay waxaa kaloo weeliya mid ka yarkaas oo laga sameeyey haraggii adhiga tabed baa kaas la yidhaahdaa waana isku nooc sida loo sameeyey sidii oo kale u saabsan yahay laakiin labadii baad garanaysaa saamooda ay ku kala samaysnaa iyo sida ay u kala yar yihiin markaa midna waa gogga midna waa tabedda markii hore kuwaynu lahaan jiray kuwaa weeye hadda tanigaa bedelay tanigu waxba naafacaad caynkaasa ma laha markiiba waa jabaa-u haddii awrku la buubo laakiin isaguna maaragtay waa lagu manaafacaada hadda waxaasu isbedeleen waxaa kale oo jiro aynu subaga markaa ku shubannaa baarahadii de aan iyada idiin sheegayna markaa waa horreysay eftaasu waa wax lagu shubtaa subaga iyo magaranaysaa muqmata iyo wixii raasamaala ee reerka uu dhiganayo waxa oo dhanna tanigaa waa lagaga wanaagsan yahay laga sameeyey daasadda oo kuwa kale ayaa kaga wanaagsan oo hooyadu waxay odhanaysaa subaga tanigaa in sanadka la cuno laakiin hadday doonayso subag guuyaa inay dhigato waa inuu ubada ku jiro ama waa inuu qumbaha ku jiro ama waa inuu gogga ku jiro ka guuyadii waa maxay waa subaga 3 jirka iyo waxay ka dambeeya weligiiba wuu sii wanaagsanaanaya markaasuu guduud isu rogayaa marka dambe markaa dabadeed dad yar uma hayso oo dabadeed xoolo leeyaho ilaahay markooda hore maqani ka dhigay sidaasa horta alaabta si u kala waaweyntahay sidaa weeye biyaha iyo caanaha iyo subaga wixii lagu qabsanayay waxa kale waa kasoo hooseeyano tallaabo tallaabo ayaa loo soo qaadaya inta waaweyni intaa ka xusuusnay intaa weeye waxa kale oo jira dhiirihii waa suusaga buraale idin wada sheegay dhiiruhu iyo waxa laale wixii la mid yihiin ee surayo la yidhaahdaa waa inay marka hore leeyihiin side waana gurgurkay ka mid yihiin waxa uu shardi in waxa surayo la yidhahdaa uu marka hore side leeyahay ku sudmaya markaa meeshii illa waxaan lahayna meel uu qabsado markaa dabadeed meel kuu qaban maaye dabadeed waxaa soo dhami waa dhiilay waa hadhurgaalka ey waa qarroga ey waa doobiga yara geela lagu maalo ey waa kan adhiga lagu maalo ey waa kan lo-da lagu maalo ey waxaasoo dhan baa kala wada jaarjaara waa fujaanka kan satiyada leh dabadeedna ay muqmadda isagana lagu rito ey waxaasoo dhami marka hore meel la suro waa inuu leeyahay dabadeedna surayana waa la yidhahdaa sidana waa inuu marka hore leeyahay markaasaa dabadeedna shayadaa waaweyn ee saababka ah ee gilgilka wada leh ayaa la suraya markaasu dabadeedna qurux meydha noqonaya awrka marka la radana saasoo kale u weyi ayuubaa loo suraya wixii marka la safo lahaa saab ayaa waxaa kalena lagu iltinaya markaas awrka qurux inaanaya isu wada dheelitamaya midba meesha u ku xamboonaa ay hooyadu gelinaysaa markaasi gebil xeerkay ku dhufanaysaa dabadeed waxa la hadli weeye
waa la garanayaa iyada qudheeda kaasa wuxuu doonayaa xanaan oo gabadha rari taqaana la garanaya awrkeedu si isugu wada miisaamaya wax waliba waxay ka soo wada baxaya qof walba farsamadiisa ayuunbaa lagu qiimaynaya daahiro adigaa ku watee waxaan kugu sii ku weydiin lahaa safarka satiga waxaa kan la yidhaahdo alaabta yaryarka wax lagu cuno qandaalka biladayaha kuwaasoo gurgurka ka mid maaha maya muleen baa la yidhaahdaa dhalinyaronimada kugu waxane waad yar tahay kuwaas waa wax meel lagu ridaa iyagu goonidooda isma taagaan sudhayada waxaa ka mid noqon kara masafta waxay leedahay sidi wixii sidelay umaa meel sudhmaya safarka amxadda afxaddu wax yada gurgurkay ka dhigato afxaddu shay qaaliya wey safadu maxay tahay waxaa la yihahdaa afxadda waxa weeye alaab laga samey alaab marka hore waa qolay kolay safar ma aqaananay kolay waa caw kolay waa caw oo waa geedka alaabada weyn lagu ritaa ee badan waa kolayka waa kolay waxaa jira geed kale oo la yidhaahdo abxad abxad labada aqalee isu dhow ee reer magaala iyo miyigaba wada ahi labada hooyo ee midina sadbuuqa leedahay birta sidaa ka wanayn magaalada ku haysano midina abxadda leedahay waxay odhanaysaa in adeeray iigu rid abxaddaada dharkan xariirta ah sanduuqu way iga cunayaa abxaddu shay qaaliya wey waa caw waaweyn oo la sameeyey harag baa lagu dhuftay markaas la megdeeyey oo suuna oo lagu qurxiyey galka saraa markaa loola tegayo baxal la yidhahdo aleel ayaa lagu xarray markaasa hadhowna shay kale lagu qaadayo maanta marka la rarayo sidii aqal weyn oo ardaayale oo abxaditaal uura raacdo waa saca lagu ammaanayaao haddii bahashaasoo hadhowda galkeedii laga saaray uu aqalka safan yahay waa abxadoo waa geedka ugu quruxda badan oo hadda sanduuqaa bedelay sidii ubadaba aan dii sheegaya tanigu u bedelay ayay sanduuqa bedelay mar labaa laysku aburaya wey marka dambe daboolka laga qaado udgoonka markaasaa taxajab u dhimanaysaa markaasuu caw waaweynna yahayo sida loo tolay aada yaabayso oo sidii macno masafeedoo dambe saasoo kale loo soo sameeyado markaasaa mid kale oo gal lagu ridayaa isqabsanaya markaasaa kaa sare weeyaan ka quruxda badan leh oo wejinanay markaasaa hadda aqalka sidaa loo dhigaa mase laa ilaaha ila allah agtiisa maka kac ma odhanaysid marka waxaas oo dhan waxaa hoosta kaga wada jiraa muleen layada ma aynaan taaban ee sheeyada yaryaraa baynu taabanay bal muleenka ibrala weydiye waan kugu soo socdaayo weli waxaanan ka dhergin wax kaleeto 3 erey baynu kala guri doonaa ama 4 ereyba ayaan rabnaa hadda ninka fiqburaale aanu la guuxayaa 4taa erey waxay kala yihiin ereyga koowaad wuxuu yahay gurgurba halkan waxaan rabaa gooni inaad macnayso muleenna inaad macnayso oo kala saarto agab ama alaab 4taa erey oo macnahoodu isgalo waxaan ku yidhi hadda kan koowaad wuxuu yahay muleen kan xigaana wuxuu yahay gurgur kan xigaana wuxuu yahay agab ama alaab nimasu u yaqaan qolba diyaarati xoolaha baad moodaa inuu agab ama agabtu ii taal ama alaabtu ii taal ayay yidhaahdaan gabayada way ku badan yihiin mid kaleetaa jiro oo la yidhaahdo magaad bal intaa oo erey waxaan rabaa in la kala saaro fiqburaalaan ku horreynayaaye fiqburaalow hadda kan koowaad wuxuu yahay waa muleen kan xigaa waxa weeye agab kan kaleeto gurgur kan xiga oo magaciisa waa magaad bal 4taa erey inta isku macnaha iyo hadday kala duwan yihiin say u kala duwan yihiin iyo waxay ku kala duwan yihiin loo kala waa tahay horta gurgur sidaa aw daahir u yidhi yaan la qabaa kuna noqon maayo ma iyaga macnahooda kala du markaas gurgur laguu sheegay waxaa la yidhi waxaa weeye haan la tolay ama qori ha laga sameeyo ama ha la tolay ee wixii jabaaya ama wax lagu rito ama wax lagu dhaansado ama wax lagu cabo oo caashaan magaranaysa waaweyn oo lagu shubto yaa horta gurgur la yihahda ka kalena waata la yidhaahdaa awrka gurgurka gurgurkaa waxaa la saaraa awrka la yihahdaa xaaswalwaag waa awrka isagu iska degan ee reerkaba uusan ka guuri karin reerkuna ku dhisay
marka awrkaas iyo gurgurkaas way is eeganayaan maxaa yeelay waxaa gurgur la yidhahdo awr layliya lama saari karo ee waxaa la saaraa awrka xaasulwaalka ah maxaa yeelay wax kala go-aya iyo wax jabaayay leeyihin marka la yidhahdo wax kala go-aya haantu ma kala jabto ee waa kala go-daa wixii tulliingi waa kala go-aan ee ma kala jabaan wixii uba ah oo qoriya ama ha la qoro ama kuwa galbeedka laga keenay ha ahaadeen baadooyinkaas iyo ama ubooyinka ha ahaadeen nin walba suu yaqaano mid yar baa iyana jirto la yihahdo dhuulo yaa jirta oo ku saddexa saddexdaa ubo midi waxaa weeye baaradaa weyn ee aan la taabanin oo lala sugo wakti xumaaday intaa hoostaa laga soo cunaya waxaa dhuulladu waxaa weeliya mid yaroo aan taa weyn gaadhin ta labaadna aan gaadhin ee ta saddexaada oo taas marka alaashaa wax lagu quraacanaayo wax la cunaayo baa la sii cunaa markaasaa lagu xejiyaa taa kale ubada ah baaradaa wakti jiiraa lahoo xumaaday baa loo tagaa oo waa ta reer maadhka weyne uu ka buuxa waxaa ku jira subaga badiba lagu keydiya wax kastaaba ha raaceen subaga la lulay ee la shiilay ee sixinta la yidhaahdo yaa lagu riday kuwa ka kale waxaa weeye wixii taa ka soo hadhaa lagu shubaa oo saasaa loo waxeeyaa marka gurgur waxaan kaga baxayaa gurgur waxaa weeye wixii jabaaya wixii lagu rido wixii maya iyaga laftooda ba ama ku jirin iyagoo isku jiraa la yihahdaa gurgur ama haan ha ahaadeen ama ha ahaadeen uba ha ahaadeen ama baara ha ahaadeen ama qumbe ha ahaadeen ama haragba ha ka samaysnaadeen ama qore ha ka samaysnaadeen ama tolin ha ka samaysnaadeen gurgur baa la yihahdaa gurgur maxaa marka loo yidhi bilmatel marka aqalkii la dhisaayo iyagu dusha mumbada waata la yihahda aqalka guradiisa bilmatel aqalka guradiisa yaa lagu teediya dhinacyada lagaga teedsha waa ko gudaha lagaga teedsha marka gurgur waa aqalka gudihiisii guduu ka yimi gurgur buu soo galay marka waa aqalka guradiisa oo kale marka gurgur waa kaa awrkiina waa lagu gurguriyo waa kuwa hareeraha laga saaray gurgur intaas iyagoo isku jumlaysan horta la isku yihahda magaalo ku xig magaalo iyo muleena waa isku hal magaalo iyo muleen waa isku hal way isku maxay waxay yihiin muleen waxaa la yihahdaa wixii wax lagu cabo ama wax lagu dhamo kidli leh inagu jelemad baan idhahnaaday kidli leh jelemad iyo ibriiq iyo waa la wada yidhahdaa xeedha sibidi leh xeedha ballaad leh dhune leh fandhaal leh bixiye leh dhiil leh hadhowgaal leh qarrog leh bidhe leh doobi leh haddii la maayo muleenkaas waxaa way fandhaal leh waxaasoo dhan waxaa lasu yeedaa muleen mudac iyo madile qodbarolow adaa ku watee markayna tiraahdo xalay baa reer halkana la muleensaday maxay la jeedaa waxay ula jeedaa wixii aan haystadoo dhan eeqalkaa hoose o dhan waa la dhameeyey nag baa laga siiyey xalay baa layga gurtay waxba layguma reebin waa muleen magaadna waa la yihahdaa agab baa marka kuu timi agabi waa magac guud bilmitel halkay agabtu noo tiri waa meelaad wax ku uruursan jirtay oo agabtaasi taasay ka mid tahay maxaa yeelay waa laga soo shaqeeyey waa la soohay oo waa la qoray oo waa la iibiyey oo waa la karay oo nooc walba waa loo sameeyey marka waxaa la yihahdaa agabtu meeshii ay noo tiilay markaas wax walbaa ku dhayi oo ma waxaa leedahay waxay leedahay agabtu waxay tahay way kasii weyn tahay oo waa kasii aad weyn waana gelaya alaabtana way wada gelaysaa Alaabtana wada gelaysaa. wixii oo dhan baa wada yarayo markuu ninka gabiya yeelahay anaa meelaan laga oombaxayn agabtu ii taal agabtu ii taal macnaa alaabta oo dhan baa ii taalo wixii oo dhan baa ii yaal buu leeyahay Wixii oo dhan baa ii yaal. saas waa abaan garta magaca guud weeye oo wax weyn wixii oo dhan agab ama alaab alaabteedoo dhan weeye waxaan saasaan u aqaanaa waxaan u gudbayaa saddexdii erey waxaan ku celin doonaa dhowrkii erey oo kala ahaa gurgur iyo muleen iyo magaad iyo agab ama alaab bal daahir afqarsho adiguna saad u arkayso bal saddexdaa ere kala gur afartaa ere kala gur intuba horta sidaa loo sheegay weeyaan oo anuguna waan raacsanahay haddaynu sii wadno marka aan la maqlo gurigii waa la muleensaday naagta liidata alaabtaa yaryar iyo waxaasay qaadataa markay reerka ka duddo naagta fariida ahina waxay tidhaahdaa kollay waa lagu soo celinayaaye iyay kaa dayacmini haddii laydo gurigii way muleensatay
xadhkaha qaaliga ee xoola ah bay qaadataa ee ogow inaanay isku mid ahayn mididharkeeda iyo alaabadan yaryar iyo waxaasay markay dudo qaadataa ay xambaaro karayso reerka ka tagtaa naagta fariida ahna waxay qaadataa xadhiggii aynu odhan jiray xadhigyeel ee subkanaa ee xoolaha laga sameeyey ee sidaa isugu wada maraa kaasay qaadataa tiradaa dabadeedna hadhow yuu dayacma intaad guriga ka maqan tahay waa kinsi reerkii dabadeed way ka tagtado habli way muleensatay marka waxaad ogaanaysaa inay xadhiggii oo dhan qaadatay xoola ahaa ee laba gabdhood oo isdhalay gabowsanayay waa inaan markii hore taaban ko mar kale haddaynu usoo noqonno gurgurkii waxaynaanba taabanay shaygii ugu wada qaalisanaa oo muxuu ahaa dharigii adari laga keeni jiray ee neef dhan inta lagu rido intuu muulmuuliyo udgo